nadaafadu waa shay qaali ah inta qashin uu ku jiro iyo wasakh ayuu cudur ku jiraa magaalada Muqdisho ayaa waxa si tartiib ah u soo noqonaya bilicdii ay lahayd sidaa darteed bilicdu iskama timaadee ee waxay ku timaadaa dadaal waxa gobolka Banaadir ka howlgala kumbaniyo ka shaqeeya nadaafada waxana kamid ah kumbaniyadaas kumbaniga deegaan oo ka howlgala degmooyin ku yaala gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho waxana kumbanigan aas-aasay dhalinyaro iskood isku xilqaamay waxa ayna go'aansadeen in ay soo celiyaan bilicda Muqdisho meelo badan kumbanigan ayaa waxa uu si gaar ah uga howlgalaa dhowr degmooyin oo ka tirsan Muqdisho waxa ayna indhahaagu qabanayaan iyaga oo baabuur ay ku xardhan yihiin magaca deegaan ay ka gurayaan qashinka xaafado badan sida idin muuqata waxa ay ku hawlan yihiin sidii ay u nadiifin lahaayeen xaafadaha ay ka howlgalaan intii aan ku guda jiray u koorgalka sida ay u shaqeeyaan ayaa waxa aan waraystay qaar ka mid ah odayaasha xaafadda oo aan weydiiyey sida ay u nadiifiyaan xaafadaha kumbaniga deegaan waxaan noo imaatay shirkadda nadaafadda deegaan si wanaagsan ay wax noogu qabataa hadda waxaan taagannahay laamiga sidaas darteed waa howl aan aad iyo aad macnaha ugu bagnay waxaana jecelnahay inay mar waliba hawshaan si fiican ay noogu qabtaan waan ku faraxsannahay waa mid oo weligeed macnaha aan awaal iyo wax uu haydoon hawshaan waa waday casrigan waa waqtigan hadda socdo ajaan qaadi kara waa waqtiis maanta kan ku meel gaar marka ayaga sidoo kale u baraarujin lahaa in xaafadoodan yani xaafadoodan hadda way isticmaashaa badankeeda oo ujeedaa qashin la'aan waa meel walba xaafadda badankeeda way isticmaashaa marka ayaga waxaan ku dhiirigelinayaa in walba maaragtay oo shaqadan kale oo maaragtay dhiirigeliyo wiilasha la shaqeeyo waxaa xusid mudan in ay ka shaqeeyaan dhalinyaro badan oo iyagana u noqotay shaqo abuur waa kuwan qaar ka mid ah oo la hadlay TV-ga Star dhalinyaradan ka shaqeysa gurista qashinka magaalada gudoomiyahan Cabdullaahi Yuusuf oo taxi nagdo keenay degmada wadaagta oo hawsha ku wadno oo saaka abaar loo intaan ka soo qayb galay shaqada hotel Shabow oo isku imaalo marka deegaan way ka mahadsantahay maadaama shaqada deegaan oo shaqada si wanaagsan oo ilaahay ku darnaadeen oo xaafadahan loo mahriyeen waxaan jecelnahay inuu ilaahay yiraaho dawlad kasta insha Allah inaan u shaqeyno inuu ilaahay yiraaho dalka dadka aan qabano beesaan jecelnahay Maxamed Ali Ahmed waxa uu u qaabilsan yahay kumbaniga deegaan waaxda General Daawud gaar ahaan xaafadda Ceel Qalow waxa uu sheegay in dadku ay ku aasi jireen qashinka gudad ay ka qodaan wadooyinka dhibaatana ay ahayd balse taa laga gudbay marka hore baygi hore waxa dhacday markii hore gudadka markii la qodan jiray tusaalahan godka marka cid dhinaca ay ka qodato wadada xuquuqda wadada ay leedahay ma aysan soo bixi jirin laakiin hadda markii kumbaniga oo yimaaday waxa soo baxday wadada xuquuqdeeda in nadaafadii ee wadadii macnaha ee cidii ay ku xifaaltamaan gaariga maanta soo socdo in wadada xataa la xaaqo laakiin markii godadka oo qodnaayeen hadii la dhaho laamiga wadada xaqeena macnaha qof walba wuxuu leeyahay godka iga buuxsamay wuxuu ku ridanayaa kaliya bacdo yahay oo ku keensada ama adeeg oo ku keensada marka waana mid xifaaltanka qayb kamida wadada iyo in xaafadiyo dham hal mar loo kaco oo hal mar loo wada xaaqo oo gaariga lagu wada shubo saa dareemaysa arkaysiin gaariga waa gaari aad u weyn marka wadadii in xaq guriga kaliya ma qaado qashinka waa wadadii sidoo kale mar walbana waa gaari ka shaqeynaya Cabdullaahi Yuusuf Siyaad waa agaasimaha guud ee kumbaniga deegaan waxa aan ugu tagay xafiiskiisa waxa uuna ii sheegay ujeedooyinka loo aas-aasay kumbanigan iyo sidoo kale in mararka qaar ay waayaan meelo qashinka ay ku shubaan hase ahaatee ay waaxda nadaafadda ee dawladda hoose ee gobolka Banaadir ay ka caawiso oo ku dhawahay TV-ga Star waana ku mahadsantihiin soo booqateen iyo hawsha nooystiin iyo maanta hawsha adagoo maanta aad qabateen aad u mahadsannahay waa mahadsantahay TV-ga Star kumbaniga waxaa aasaasay dhalinyaro Soomaaliyeed oo wax ku soo baratay waddanka Soomaaliya markii midna dareemay inay jirto baahi dadka Soomaaliyeed hayso ayagoo dareemay in dadka Soomaaliyeed aysan ka bixin cudurrada ugu badan fayraska oo laga qaado waxyaabaha waste managementiga
كمبانيga waxaa la aasaasay 2013 bishii 9aad la aasaasay ilaa maanta ilaa hadda maalin stable gunayay dadka badankoodisa ka waraysa maanta soo aragtay dadka maanta xamareysay waxa waa si voluntary dadka loogu shaqeynay iyadoo caawinaad gaar looga helin baan xog wax u saaray si u fahmay shaqada in badan way fahmeen laga soo bilaabo 2013 hadda dadka maraaxil kala duwan soo mareen dadkuna aad iyo aad ula qabsadeen heer waxay maraytay dhulka maanta ilaa shaqada waa qabanay ilaa shaqada ay marayaan waana waqti la geliyay dhanka kale kamida waxaa looga filan tahay shaqo abuur dadka in badan oo yaraa magaalada ka joogay shaqaalaha ahay shaqay ka heleen waxyaabaha dadku faa'iido kamida shaqo abuurkaas iyo caafimaadkooda waxbaa ka qabata maadaama wasaqda ay bulshada ku jireen ama bulshada ku jireen laga saaray maadaama hadda isbitaalada xataa marka tagtay dadka waxyaabaha fayraska imaana aad u yaryihiin marka wax weyn oo qabsoomay oo rajeen wax badan oo soo baxay dowladda hoose kale u fiican ma dhalayo marka hore shaqada marka bilaabayay طبعا meelaha qashka la geeyo cusub badan ka taagan oo waxa way dadka ku Soomaaliyeed waxa dhacay dadkii dhulka wada caburto oo meel loogu talagalay dadka khaaras ka sheekada dhacdo wadada la qorto laakiin saasay tahay markaas dadka dhulka oo iska shaqeynaya badan xaliyada markaas la xaliyaa maxamed cabdi cismaan maxamed faradheere TV-ga caalamiga Star magaalada Muqdisho.